بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بان السلام يا دوان تيم وقول ريو مدحوينها جمهورية فيدرالكا الصومالية. dhammaantiina waan islaamaya waan soo dhaweynayaa xafladdan quruxda badan ee lagu daafurayo dareenka cusub ee jenaraal maxamed abshir international airport. intii xafladda soo qaban qaadisay wasaaradda duulista ugu horeyso aada iyo aad ayaan ugu mahadnaqaya dhammaantood. waxaan si gaara usoo dhaweynayaa marti sharafta inuu ka timid meelo dhaadheer oo wafdiga madaxweynuhu ka mid yahay dhammaantood, dowladaheena jabuuti wafdiga ka yimid iyo dowladda etoobiya iyo wafdiga looga timid, maadaama safarreer ay soo galeen inay nagala qayb qaataan xafladdan quruxda badan. si gaara ayaan ayagana usoo dhaweynaya. waxaan isugu nimid daafurka aeroboortkan oo muddo ay sugaysay Soomaaliya iyo gaar ahaan dadweynaha reer Puntland. waa aeroboortkii labaad hadda aan daafurno oo caalami ah ee laga hirgeliyo Puntland. sida la sheegay dad badan baa contributionkeeda iska lahayd, ama ha noqoto lacag 5 milyan oo dowladda Kuwait ay ku deeqday, 6 milyan aan marinaya. inta kale ee ku baxday intaana ka tira badan waxa lagu keenay isku tashigii dadweynaha iyo dowladda Puntland ay ku yimaadeen. waxaan rabnaa marka waxaan maaynayaa October 2014 anoo jooga London ayaa waxaan idin hal sano hal airport, 2 sano 2 airport, 3 sano 3 airport. hadalkaas marka la runtii wax dhaqaalo aan u meel ku ogay ma jirin, laakiin waxaan kalsooni ku qabay awoodda shacbigeedu haddii ay ayagu tashadaan, iskuna tashadaan awoodda ay leeyihiin ilaahay ayaan ku aamin qabay in ay niyad wanaagsan iyo dadaal haddii lala yimaado in wax walba inuu hirgelaya. waxaana marka madaxweyne Puntland waxay ku tashatay waxay yidhaahdo isku tashi bay ku ballanay. waxaan ku ballanay isku tashi. isku tashigaas waxaan ku bilownay oo odayaashii ugu horreeyey maxamuud xaaji solkaan oo noo fadhiya sheekhaadii wadadii midigar oo xastan oo maraynaya oo bilowgii 2014 iyadoo baarlameen u nimid. aanan u qabin in aanu buundo dhisan karno weyn dadku ay u qabeen, laakiin dakhli lacag 1 milyan oo dollar ah iyo 2 bilood gudahood aan ku dhamaystiranay. waxayna tusay taasi wax badan in aanan ka sugin ajnabi iyo dabad, laakiin annagu wixii aan qabsan karno aan qabsano. su'aal waxay tiraahdaa la yiri fakta shadiicin waa turi karaa taa ka labadeeda, dumarkana waa ku darayaa. waxay kala yidhaahdaa wixii maxay ahayd ha ku tashado rag banaad baro waa rumooga, haddana dumarka ku daraya laftigeeda. waxaan rabnaa marka madaxweyne waxa ugu dambeeyey oo ku hirgala isku tashigaasi waxa weeye aeroboortka Garowe ee maanta adigu aad daahfurtay. waxaan aaminsanahay wax badan oo ka sii tira badanna ama ha noqdaan dekado ama ha noqdaan jidad ama ha noqdaan kaalayaasha kale ee dhaqaalahana waanu qabsanaynaa, waana ay noo socdaan hadda laftigeeda oo in badan oo kaabayaal dhaqaalo wadooyin leh oo dekada leh ayaa noo socda oo dhammaantoodna ku imaanayska isku tashiga iyo
airportkan marka madaxweyne wixii ay Puntland qaban kartay waa qabatay waana aragtay waxaa dhiman dhamaystirkiisii annaga intaasay nagaga egta waxay ka dambeeya dhamaystirkeeda idinka ayaa laydinka sugaya waxaan rabaa sidoo kale dowladda federaalka ahi wax walba oo la qaybinayo waxay tiraahdaa 4.5 aan ku qaybinayna hadda ka hor halkan anagu 4.5 waa ka diiday haddee baahida markii la yidhaahdo adeega iyo tababarka iyo qalabka ha lagu saleeyay madaxweyne baahida iyo garoobada iyo facilitieska dadka ka jira ha lagu beesgalayo laakiin aysan noqonin in la yidhaahdo wax walba sidii bres la qaybinayo waxaa loo qaybinaya 4.5 idinka iyo reer wasleegtimaa leedahay sida aan kalkan ka maqasheen airportka waxaa loogu magacdaray allah naxariistay janaal maxamed abshir muuse oo dhammaanteen aan wada naqaano taariikhdiisa marka dabcan qof kasta oo Soomaaliya wanaagsan waxna ka taga waa mudan yahay in la xuso lana qadariyo waxaa rabaa marka duurkii baa jooga ciidadan waa kulushahay in aan waxaa rabaa soo gabagabeeyo warkayga waxaan warkii hadda halkan madaxweynihii hore uu ka yiri anuu haddana ka jawaabo ma rabo sababtoo meesheedii maaha madasheediina maaha soomaalida waxay tiraahdaa baa layidhi caana ninkii soo liseeyey la yaqaan ninkii doonaa ha sheegto marka guul iyo khayr ayaan idin rajeynayaa dhammaantiin